dhalinyaro Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda joogta maalin walba diinta waxay uga baxayaan boqol waxaana looga bixi ficilka al-shabaab dartood haday diintiinu noocan tahay haddii cid iska aad waliba dadku waxay leeyihiin wadaadada xataa afar wadaado Cabdiraxmaan iyo wadaadada lamid ah ka hadla inta kale wax ka hadla ma jiro wax sax uga hadla ma leh marka saa darteed Cabdiraxmaan oo adaaba khaldanba maxaa wadaadada kale wax ka hadlaya ma leh hadduu wuxuu sax yahay oo inama kale diin la'aan yihiin wadaadada jooga Kenya ma ka hadlaan kuwa jooga Soomaaliya ma ka hadlaan kuwa jooga muxuu Itoobiya ma ka hadlaan kuwa Mareykanka jooga ma ka hadlaan ma laga wada hadlo dibka in haysta arag marka dhalinyaradu waxay leedahay adaa diinta yar adaa wax macaan noo sheegiye diintiinu qaraxa u weeye adduunkan way nagu qarxin aakhirna way nagu cadaabaysaa diintiinu wax kale ay tahay male saasay ku doodayaan warka practically sidaas uma muuqato Soomaa practically marka inaan bedelo on tusna Minnesota 40 masaajid baa ku taale bal at least weegan hadda soo socda 40 ka masaajid diyaar ma u yihiin khudbado al-shabaab iyo xumaantooda ka hadlaya yeenaysan diin shaqo ku lahayn inay jeediyaan yani runta marka la soo sheego maya may kuwa Canada diyaar uma aha kuwa Columbus oo haya diyaar uma aha kuwa Washington Seattle diyaar uma aha kuwa Kenya diyaar uma aha marka mushkilada in haysataa waxa weeye wax badan baa inaga khaldamay waatan haddaan dagaal galno oo al-shabaab la dagaalano inaga dhiman mayso dad ka badan inta ku dhintay qaraxii Soobe inaga dhiman mayso dad ka badan inta ku dhintay qaraxii Hargaha inaga dhiman mayso fiiri maanta bam soo qarxiyeen 30 qof ee dheeraad baa daqiiqad kaliya ku dhimatay 100 ee dheeraad baa dhaawaca 100 ka waxa laga yaabaa 40 ka mid ah dhaawac u dhintaan haddana sidaa darteed waxaan rabnaa inaan laba mid kala dooranno waxa la yiraahdo al-mawt al-badi inaan si tartiib ah oo isdaba socota u dhamaan u dhimanno oo sayna la doonayaan iyo inaan dhahno warbahashu muxuu ah shajaa'atu sabr saa'a geesinimadu waa saacad la dul qaatay bahashu hadday dhowdahay ilka doofar la sahansay nimanku waxba ma aha macusley reer hiiraan ma dhagaha ka raacday nimankaas ka wada dhicino diyaar ma u tihiin sida ninkii la oran jiray George W Bush markay dhacday September 11 wuxuu adeegsaday hadal galay taariikhda wuxuu yiri bulshada adduunku maanta waa labo either with us or against us no the middle ground qofka Soomaaligu maanta either with the Somali people or against the Somali people nothing in the middle qof walba oo dagaalka al-shabaab laga soo horjeedo u raadiyo justification tabriir oo dagaalkan waa khalad qabiil bisu bedeli doona sidaan uu noqon doona al-shabaab uu gacan siinaya ma ogashiin sida cid walba oo al-shabaab lacag siisa al-shabaab ay gacan siinaysa diyaar ma nahay inaan joojino oo diidno cid walba oo wiilkay abtiga u tahay kay habaryarta u tahay kay eedada u tahay kay ay dhashay kala dhashay al-shabaab soo sheegi weyda oo oran weyda kana al-shabaab uu gacan siinaya diyaar ma inaad soo sheegtaan waxaan rabnaa dawladda kaleedu ma qaban karto dawladdu waa afarni waa aniga adiga weeye haddaynan la shaqaynin haddaynan oranin war arrintan sax ma aha waxba ma inoo hagaagayo saadarta